islaamku waa diinta uu rabbi raalli uga noqday awal iyo aakhir addoomaha idil ahaantoodba. qur'aankuna waa buug gacmeedka la soo raaciyey abuuritaanka aadamaha. dhammaan diimaha uu rabbi soo dejiyey waxa ay leeyihiin isir wadaag madoorsoome ah oo qeexaya geedi socodka nololeed iyo bardhamaadka aadamaha halka uu ku aroori doono. islaamku waa shariicadii iyo manhajkii uu rabbi soo dejiyey muddo hadda laga joogo facii 14aad ee tirsiga taariikhda hijrada. sida aynu xog ogaal u nahay, rabbina inooga warbixiyey diimihii hore waxa ay ku dhaceen gacanta aadamaha, waxaanay la kulmeen faragelin taban iyo taxriif. haddaba islaamku maxaa uu kaga duwan yahay diimahaas? maxaa islaamka ka dhigay habraac nololeed oo lagu sargooyey maslaxadda aadamaha jiilashii kala horreeyey ilaa maanta? maxaa uu islaamku kala gaar noqday dhammaan diimaha iyo habnololeedyada kale? waxa uu qirayaa qoraaga Ingiriis ee Hilaire Belloc in uu islaamku yahay hannaan dhammaystiran, isaga oo leh in yar oo shaki ahina igama jirto in ilbaxnimada ay qaybaheeda isu hayaan dabarra adag ee tunkeeda ku xambaarsan caqiido sida islaamka oo kale ahi aanay filanaynin oo keliya mustaqbal heer sare ah ee ay xitaa halis ku noqon doonto cadowgeeda. waa weedha uu leeyahay Hilaire Belloc. halka uu sheegayo Paul Shatmas, taariikhdu way isi soo celin doontaa iyada oo ka bilaabanaysa bariga, dib ugu laabanaysa bilowgii, kana soo bidhaami doonta goobtii lagu asaasay awoodda caalamiga ah ee islaamka waagii ugu horreeyey ee islaamka. waanay soo ifbixi doontaa awooddaas ku qarsoon isku xidhnaanta islaamka iyo midowgiisa militari. awooddaasi waa ay ka dhabayn doontaa jiritaankeeda haddii ay muslimiintu gartaan sidii ay ula soo bixi lahaayeen ugana faa'iidaysan lahaayeen. sababtoo ah waxay ku salaysan tahay aasaas aan laga heli karin mawjadaha kale ee awoodda adduunka. islaamku waa diin ku astaysan gaar u dhiganayaal door ah, kuwaas oo qayb ka ah markhaatiyada iyo maragga cad ee tilmaamaya in ay tahay midda keligeed saxa ka ah diimaha oo dhan. tilmaanta koowaad, rabbaaniyadda ku sal leh xagga alle subxaanahu wa tacaala. islaamku waa diin iyo caqiido aanu aadama hal abuurin ee ka timi alle u ogaal badan baylahda addoomihiisa. isaga ayaa ah midka ugu xeel iyo xirfadba badan addoomihiisa waxa ku habboon iyo waxa ay tabanayaan intaba. abbaartaasi waxa ay isir wadaag u tahay in diinta islaamku ay noqotay hannaan nololeed oo ka haqabtiraya aadanaha gebi ahaanba baahiyaha nololeed iyo badbaadada if iyo aakhiraba. diimaha iyo madaahibta kale ayaa ah marcuris iyo aadama samays sillane ah oo aan sinaba u buuxin karin godoloolada baahiyeed ee basharka. islaamku sida uu u yahay mid ka soo burqaday rabbi ayaa uu u yahay mid yoolkiisuna uu u socdo dhinaca rabbi subxaanahu wa tacaala. waxa uu saafi ka yahay dulmi, tacaddi, u janjeersanaan dhinacyada qaar iyo isxulufaysi. dadka waxa uu ka saaraa dulmiga isaga oo u horseedaya sinaanta iyo cadaaladda. waxaa tusaale inoogu filan weedha taariikhda gashay ee uu Ribci ibnu Caamir ku lahaa boqorkii Roomaanka, taas oo ahayd: alle ayaana soo saaray, waxaannu noo soo saaray in aannu dadka ka saarno is-addoonsiga ay badhkoodba badhka kale addoonsanayaan, una saarno in ay addoommo u noqdaan rabbiga addoommaha yegleelay ee abuuray oo keli ah. tilmaanta labaad, waafaqsanaanta lamadoorshaha abuur ee addoommaha fidrada. rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu uumay aadamaha qaab isku siman oo ka dheer nusqaan iyo dhaliil. waxa uu ku abuuray hannaan soo dhowayn u leh rumaynta, aqbalkeen la ah addeecitaanka marka ay ifka timaadana la jaanqaadaysa nolosha. taasina waa abuurta ilaahay ee dhammayska tiran. ku tilmaamidda islaamka inuu yahay diin ku jaango'an fidrada lamadoorshaha abuur ee aadamaha macnaheedu waa inuu islaamku ku qulqulayo abuurkii iyo hannaankii uu markii horeba ugu talagalay basharka, iyo in aanu qofnaba si kasta oo ay ahaato ka maarmi karin addeecitaanka alle kafaalo qaaday nolosha addoommihiisa ka hor intii aanay soo gaadhin nolosha kadeedka badan ee adduunyada.
Tilmaanta saddexaad, koobsashada dhinacyada kala duwan ee nolosha. Islaamku waa hannaan nololeed oo dhammaystiran, halka ay diimihii hore ka ahaan jireen kuwo ku kooban ka warcelinta waayihii ay la baashireen. Islaamka Rabbi koreeye waxa uu ugu talagalay in uu hadhiima aqooneed u noqdo idil ahaanba aadamaha. Islaamku si isu miisaaman ayaa uu u tixgeliyey dhinacyada kala duwan ee nolosha. Waa diinta keliya ee kulmisay tala adduun iyo timaadda aakhiro, iyada oo aan midkoodna u janjeersan. Islaamku ma yaqaano adduunyo ka saahid barax tiran, suufinimo ama raahibnimo. Si la mid ahna inoomuu jeexin adduunyo meehanow iyo maadaraac. waa dariiq u dheeli tiran oo u dhexeeya labadaas. Dhammaan madaahibta ay aadamuhu haystaan waxa ay u ciirsan yihiin hal dhinac oo nolosha ka mid ah. Waxa tusaale inoogu filan suufinimada oo ah in adduunyada laga gogol fogaado, iyo maadiyada ama materialiska oo ah in nolosha laga saaro wax kasta oo la xidhiidha aakhire iyo alle cibaadadiisa. tilmaanta afraad, taagannimada. Islaamka alle waxa uu u soo dejiyey aadamaha oo dhan. Umuu soo dejin dadyow noolaan jiray waaye hore. Ma aha dhaqan carbeed oo laga dhaxlay. Ma aha diin gaar ku ah dadkii noolaa xilligii uu soo degay. hase ahaatee waa manhaj uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay in uu ka falceliyo dhammaan baahiyaha basharka xilli kasta iyo xaalad kasta. Si kooban, islaamku waa diin aanu alle ugu talagelin koox ka mid ah dadka, xayndaab iyo xero xaraynta ma taqaan, ee waa habraac nololeed oo loogu talagalay in ay inoo jid bixiso wax kasta oo la xidhiidha nolosheenna. waa hannaan boqoran oo koobsanaya dhammaan waayaha nolosha iyo habdhaqanka aadamaha. haddii ay dadka qaar u haystaan inuu islaamku yahay keliya cibaadooyin ka madhan arrimaha nolosha, islaamku waxa uu inoo asteeyey in uu yahay hannaan ka afcelinaya dhammaan duruufaha nololeed iyo dabciga alla abuur oo dhan. Tilmaanta shanaad, soo jireennimada. Diinta islaamku waxa ay soo maamushay ummadihii tegey, iyada oo maamulaysana adduunka gabalka ayaa u dhici doona, halka diimaha kale la waayo marka ay qallasho dawaaddii lagu qoray. sababaha keenaya in diinta islaamku ay joogto oo jirto waxa aynu ku qeexi karnaa in ay ka mid yihiin: 1. doonidda alleh iyo damaanad qaadkiisa. Ilaahay waxa uu ballan qaaday in uu ilaalinayo qur'aanka iyo sunnada nebiga, isaga oo leh, annaga ayaa qur'aanka soo dejinnay, annaga ayaana ilaalinayna. Sababta labaad, dhammaystirka shareecada iyo ka madhnaanta wax kasta oo dhinaan ah. Sababta saddexaad ee keenaysa in uu islaamku jiro waa in arrimaha wixii aanu daliil adag ku soo aroorin looga tegay maanka iyo garaadka aadamaha. Sababta afraad ee keenaysa iyaduna inuu islaamku jiro waxa weeye dhisitaanka qaacidooyin waaweyn oo la jaanqaadaya duruufta goob kasta iyo goor kasta oo ay dadku nool yihiin. Tilmaanta lixaad, tixgelinta aqoonta. Islaamku waxa uu had iyo jeer alle inagu dhiirigeliyaa fekeridda iyo faalo rogrogidda, falanqaynta iyo adeegsiga garaadka, daymada iyo dood wanaagga, iyo sidoo kale u dhugyeelashada arrimaha waaweyn ee ka aloosan kownka Rabbi, siiba kuwa la xidhiidha rumaynta iyo raaligelinta Rabbiga jaha suban. Islaamku aalaaba waxa uu la kalaamaa kuwa garaadsamayaasha ah iyo intii garashadu astaan u noqotay. Rabbina waxa uu qur'aanka ku leeyahay, qur'aanku xus iyo xasuus qor ayaa uu idin yahay adiga iyo ummadaadaba, waana laydin weydiin doonaa. ku akhri idamka allihii wax abuuray. waa wixii ugu horreeyey ee uu Nebi Maxamed ka maqlay waxyiga uga yimi xagga Alle subxaanahu wa tacaala. jeer ay arrini muhiim tahay dhiganaha haga-nololeedka ah ee ugu baaca weyn masaadirta dhidibdhexaadka u ah islaamku, arrintan waxa uu ka dhigay muhiimadda koowaad ee kobaca ummadeed lagu bilaabo. aayadaha qur'aanka iyo axaadiista rasuulku waxa ay aalaaba inoogu booriyaan fekerka, faanlaynta iyo u fiirsashada kownka iyo aayadaha Rabbi ee waaweyn. bardhamaadka aayadaha qur'aanka waxa aynu in badan ku aragnaa weydiimo toos ah oo leh, miyaydan garaad lahayn? miyaydan fekerayn? arrimahaas laga faallooday waxa ay wax ku qaadasho ugu sugan tahay kuwa indheergaradka ah. rasuulkuna waxa uu leeyahay, doonidda aqoontu waxa ay waajib ku tahay qof kasta oo muslim ah.